walaalayaal bal aynu u fiirsano ninkan waxa uu gaadhay da waanu indhala yahay mana haysto qof u soo kaxeeya masjidka laakiin runtii waxa uu sameeyay arin cajiiba xarig ayuu ku xidhay gurigiisa ilaa masjidka inta u dhaxaysa waxaanu xarigaasi raacaya oo haddana soo raacaya shantii salaadood habeen iyo maalinba isagoo oo ajiibaya midka halka ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu yeedhaya ee xaya cala salaale ee xaya cala alfalaax leh ukaalaya salaada war liibaanta ukaalaya wallaahi waa liibaan iyo nolol wanaagsan oo sacaado ah iyo nuur iyo guul inuu qofku xafido shanta salaadood isagoo ku xafiday guri ka mid ah guryaha ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal maxaa u soo dhaqaajiyay ninkan aad u jeedaan ee ku kallifay inuu soo raaco xadhigga habeen iyo maalinba shanta salaadood naftiisa uma cudur daarin maxaa yeelay waxa uu maqlay xadiiska rasuulku sallallahu alayhi wasallam yiri todoba ilaahay baa u hareynaya yawm alqiyaama maalinta harkiisa mooyaane aanu har kale jirin todobada rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray nin qalbigiisu ku xidhan yahay masjidka rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri indhaku qabowsigayga waxa laga yeelay salaada hadii arin muruga gelisa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu oranayay arihna biha ya bilal noogu raaxay bilaalow salaadii waa mid raaxa laga helayo adigan dayacay salaadow adigan ka tagay salaadow adigan dib u dhigay salaadahow maxaad ku oran doontaa rabbiga iska leecirka iyo dhulka maalinta qiyaamo marka lagu hor istaajiyo amalka ugu horeeya ee adoonka laga xisaabinaya waa salaada maalinta qiyaame Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wuxuu yiri nasiibkuma laha islaamnimada dhexdeeda ciday dayacda salaada rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri annaga iyo gaalada waxay noo dhaxeeya ahdiga waa salaada qofkii ka tagaa uu gaalo walaalahay maqlayo wallahi hadii aynu rabno nolol wanaagsan heli mayno ilaa aynu xafidno shanta salaadood habeen iyo maalinba shanta salaadood wallo ajra konta salaadood qofka xafida wallahi ha ku bushaaraysto khayr adduun iyo mid aakhiraba iyo guul adduunka iyo qabrigaba iyo maalinta ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmayno ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo qaar salaada xafido laga aqbalo walaala qof kastoo muslina oo maqlaya oo codkaas iyo muuqaalkaas soo gaaro ilaahay dartii ha ku faafiyo waxa laga yaabaa hal qof inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala faafintiisa oo ku anfaco wallahu tacaala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi